dhibaatooyinka jacaylka halka dhinac ah iyo talooyin la xidhiidha habka uu qofku uu naftiisa kaga dabiibi karo. waa in aynu mar walba xasuusnaano in wax kasta oo nolosheenna soo maraa uu yahay fursad aynu ku ogaan karno xaqiiqada nafteenna, isla markaana aynu aqoonsan karno inaanay jirin waayo aragnimo aan faa'iido lahayni. haddii ay ugu liidato, waxaa hubaal ah inaynu ka baranayno casharro aynu kala soo baxno si ay inooga caawiyaan in nolosheenna mustaqbalku ay noqoto mid ka duwan tii aynu soo marray. sheeko bareleyda iyo filimada Hollywood ee mala-awaalka ah ayaa lagu arkaa laba qof oo isjecel oo inta ay iscalmadaan noloshooda inta ka hadhay farxad ku dhammaysta. laakiin nolosha runta ahi sheekooyinka quruxda badan waa ay ka duwan tahay, waxaanay u badan tahay in jacaylku aanu sidiisaba garowshiyaba ka helin dhinaca kale. caadi ahaan jacaylka qofka uu ku dhaco waxa uu ku beeraa dareen xiisaynaya inuu u fasirto ama u fahmo macaamilka dhinaca kale, isaga oo weliba ku qiimaynaya sida ay isaga niyaddiisu jeclaan lahayd. waxay xeeldheerayaasha cilmi nafsigu sheegeen in qofka aad jeceshahay oo aad ogaato in aanu jacaylka kula qabin ay dhibaato aad u xanuun badan qofka qalbigiisa ku keento. marka uu xaalka qofkan oo kale ugu ladan yahay waa marka qofka uu jeclaaday ee kaga baxay ama la wadi waayey uu u hayo xasuuso aan fiicnayn. waayo mar kasta oo dareenka jacayl uu soo laba kacleeyo, maskaxda qofku waxa ay sawiranaysaa ceebaha iyo dhaliilaha ay qofkan u hayso. sidaa awgeed waxa ay isku samirsiinaysaa in aanu ahayn qofkii ku habboonaa inay jacayl u hayso. tallaabooyinka ugu horreeyay qofku kaga gudbi karo duruufaha adag ee ka dhasha jacaylka lala wadi waayey waa in uu naftiisa u sameeyo wakhti tacsiyeed u gaar ah isaga. waa hab dadka ku xeeldheer cilmiga bulshadu ay kula taliyaan qof kasta oo gooya xidhiidh uu qof kale la lahaa, xitaa haddii uu yahay xidhiidh bini'aadamnimo oo caadi ah. waa run in jacaylku uu xusuusta qofka ku sii jirayo muddo, laakiin waxaa muhiim ah in qofku naftiisa ugu celceliyo xaqiiqada ah in qofkan uu jeclaa aanu u soo socon. sidaa awgeed ay ku qasban tahay inay la qabsato duruufaha nololeed ee qofkaas la'aantii ah. marka aynu fahanno xaqiiqada ah in jacaylka aynu qabnaa uu yahay mid aanu dhinaca kale inala wadin, waxaa qasab ah inaanay maskaxdu wakhti badan oo ay kaga fikirto dhibtaa heshay ama ay sawirato maalmihii wanaagsanaa ee qofka aynu jecelnahay aynu la soo wadaagnay. waxaa muhiim ah inaynu nafta ku mashquulinno howlo kale oo u diida inay hesho firaaqo ay kaga fikirto ruuxii ay jeclayd. waa run inay adag tahay in qofka la jecel yahay dhayo lagu ilaawaa, laakiin waxaa suurtagal ah in maskaxda laga ilaaliyo inay hesho wakhti ay ku qaadato xasuusta jacaylka. talooyin wax ku ool ah in habeen iyo dharaar dhexdood aynu jacayl kaga bogsannaa waa arrin madhacdo ah. maskaxdana ku hay inaanay dadku isku mid ahayn. unugeylka dhibta ka dhalata jacaylka guulaysan waaya. xeeldheerayaasha cilmiga xidhiidhka bulshadu waxa ay kula talinayaan qof kasta oo waaya ruuxii uu jeclaa, geeri iyo gaabsi midka ay doontaba ha noqotee, waa inuu maro tallaabooyinkan. tallaabada koowaadna waxay tahay oohinta. in qofku mararka qaarkood nafta u fasaxo inay oohin ku cabirto culayska nafsiga ah ee uu ka qaaday jacaylka lagaga baxay ama lagu diiday, waxaanay nafta siinaysaa nafis dheeraad ah iyo inay aqbasho in qofka ay jeceshahay aanu diyaar u ahayn inuu dhibtan oo dhan la qaybsado iyada. sidaa awgeed ay xanuun badan ilowdo. lambar 2, heesaha iyo filimada. marar badan dadka xaaladdan oo kale ay ku dhacdaa waxa ay miciin bidaan dhegaysiga heesaha calaacalka ah iyo daawashada filimada laga jilayo xaalado la mid ah kuwa ay ku jiraan. waana run inay xanuunka haya dhaymo u noqon karaan oo ugu yaraan daqiiqadaha uu daawanayo ama dhegaysanayo uu wax badan ku raaxaysto, laakiin khubarada cilmiga bulshadu waxa ay qirayaan inay daawashada filimada ama dhegaysiga heesahani
keliya ay sii hurinayso dareenka laabta qofka gubaya. Lambar 3, jarista xidhiidhada. Qofka xaaladani ku dhacdo waxaa lagula taliyaa inuu jiro dhammaan xidhiidhada bulsho ee uu leeyahay, ugu yaraan inuu waqti xadidan joojiyo. Waa run inay tahay arrin aan hawl yarayn, gaar ahaan marka qofka jacaylka kaga baxay ama ku diiday uu yahay qof u dhow, sida inay isku shaqo yihiin ama jaamacadooda dhigtaan ama isku deegaanba yihiinba. Lambar 4, xasuus tirid. Waxaa fiican in qofku uu iska fogeeyo ama ka takhaluso dhammaan sawirada, fariimaha, qoraalada iyo shay kasta oo xusuusta jacaylka ku soo celinaya qofka. Lambar 5, dib ugu noqo hab fikirkaaga. Waxa ay khibrada cilmi nafsigu kula talinayaan in qofka xaaladani heshaa uu ku dadaalo inuu bedelo hanaanka uu u fikiro, iyo inuu ku dadaalo in xusuustiisa uu ku riixo inay ka fikirto arrimo ka duwan kuwii ay markii hore ku fikiri jirtay, sida inuu hawlo cusub bilaabo, inuu safro, ama inuu shaqo kale u wareego. haddii aad halkan nala soo gaadhay daawade, waxa aan kaa codsanaynaa inaad muuqaalka like noo saarto, waayo waxay noo tahay dhiirigelin. tan iyo muuqaalkeena xiga waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.